سورة الكوثر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. الله وحو يري إنا أعطيناك الكوثر أنك وحانو كسيني khayr fara badan baanu ku siinay ama darkii weynaa baanu ku siinay khayrka badnaa haddaad nebi moxamed tahay sala allahu calayh wasalam fasalli lirabbika tuko rabbigaa daraaddii u tuko wanxar rabbigaana wax u gowrac bimacnaa u dhuundhow inna shaani'aka ka ku nacayee kula colloobayaa huwa alabtar waa kii markaa goblanka ahaa weey ee khayrkiisu uu go'naayo aan khayrka lahayn weeyaan kii aan cidhibta lahayn weey suuraddan suuratu lkawthar culammadu waxay isku khilaafaan ma makiya mise waa madaniya bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen suuraddu waa makiya ayay yidhaahdeen culammada qaarkoodna waxay yidhaahdeen suuraddu waa madaniya jamaahiirta culammada waxaa loo nisbeeyey inay suuraddu madaniye tahay waana sida markaa culammada qaarkood ay arjaxeen oo nawowi wakayruhu ka mid yihiin inay suuraddu madaniye tahay xadiis baana soo arooray sheegaya soo degitaanka ay suuraddani soo degtay markay soo degtay nebigu sala allahu alayh wasalam sidii wax yaro gam'ay oo kale inuu noqday dabadeedna inuu markaa yidhi suurad baa laygu soo dejiyey dabeedna markaasuu akhriyey oo uu markaa nebigu bisimka ka bilaabay dabeedna suuradda sidaa ku dhameeyey xadiiskuna wuxuu ku sugan yahay saxiixa ayuu ku sugan yahay waxay kaloo culammada qaarkood ka deliishadeen bisimku inuu suuradda ka mid yahay ayay ka deliishadeen maadaama nebigu sala allahu alayh wasalam xadiiskaas uu bisimka akhriyey suuratu lkawthar yacni in bisimku suuradda ka mid yahayna waa ka deliishadeen yacni culammada qaarkood suuraddani waxay sheegaysaa nebiga sala allahu alayh wasalam khayr fara badan oo la siiyey kawthar waa fawcal min alkahra wasnigu waa fawcal kasro oo fara badnaanshaha ah baana laga keena marka waxay culammada qaarkood ku fasiraan alkhayr alkaiir ilaahay wuxuu ku siiyey khayr fara badan khayrkaa faraha badan leh waxyaalo badan baa markaa soo gelaya waxyaalo badan ayaa soo gelaya oo nebinimadii iyo qur'aankii iyo waxyigii iyo fadaa'ishii kale iyo khasaa'istii kullu daalika waxay soo gelaysaa alkawthar alkhayr alkaiir khayrka faraha badan leh culamada qaarkoodna waxay ku fasireen alkawthar in looga jeedo darka nebiga sala allahu alayh wasalam xadiis baana sheegaya huwa nahrun wacadaniihi rabbii waa markaysaa markaa durdur ilaahay siiyey weeye kawtharku nebigu sala allahu alayh wasalam inuu saa ku fasiray inuu sidaas yacni ku fasiray culammada kale waxay ku xambaarayaan wax ka miduu nebigu tilmaamay laakiin inuu ku koobaayo ugama jeedo kawtharna asal ahaan waa fawcal min alkahra oo waa khayr fara badan marka xawdku waa ka mid yacni markaa khayrka faraha badan waxay ka dhigantay yidhaahdeen alxaju carafa xajku waa carafa dee waxaa lagu ijmaacsan yahe o la ysku waafaqsan yahay xajku inaanu carafo keliya ahayn ee arkaan kalena waa leeyahay xajku laakiin waxaa laga tilmaamayaa rukniga ugu muhiimsan ayaa carafo ah taasaa looga jeeda marka tanna huwa nahrun wacadaniihi rabbi ama nahrun acdaaniihi rabbi waa durdur ilaahay siiyey kawtharku waxaa looga jeedaa kawtharka waxyaalaha ugu sii muhiimsan inay ka mid tahay baa laga tilmaamaya waxyaalaha kale khasaa'ista ah laftoodu kawtharka waa soo gelaya calaa kulli xaal macnuhu waa qariib culamada qaarkood daahirka xadiiskaasay qaateen oo waxay yidhahaan kawtharka waxaa la yidhahdaa darkaasaa markaa la yidhahdaa nebigu wuxuu sheegay sala allahu alayh wasalam
inuu markaa jiro dar waxa weeye ummaddiisu ka cabbi doonto oo la siiyey inuu jiro. wuxuu sheegay darkaasi inuu yahay dar ballaadhan oo masaafo bil la socdo ayuu markaa la eg yahay yacni markaa dherarkiisu. ballaadhkiisu iyo dherarkiisuna waa isleegyihin. yacni weel baa yaalla hareerihiis. weelkaasi waxay ka dhigan yihiin sida xiddigaha markaa cirkoo kale ayay ka dhigan yihiin xagga faraha iyo xagga quruxdaba. ninka qurquro biyaa ka cabba darkaas man shariba minhu sharbatan lam yadma bacdaha abada. wuxuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam, qurquro maraka ka cabbaa weligii dib uma haraado, weligii dib uma haraado. markaa darkaa waxaa ka cabbaaya ciddii shareecada nebiga sala allahu alayh wasalam ku qumanayd ictiqaadan wa camalan, ictiqaad ahaan iyo camal ahaanba, oo caqiidadooduna ay saxnayd, ya camalkooduna uu wanaagsanaa. ciddaasaa ka cabbaysa. dad laga caydhinaya darka nebigana sala allahu alayh wasalam waa jiraan, oo wuxuu rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam, layudaadanna rijaalu can xawdi kama yudaadu lbaciiru adaallu unaadiihim. rag baa darkayga looga baacin doonaa sida awrka baadida a darkaanu lahayn looga eriyo kale ayaa rag looga baacin doonaa, looga eryi doonaa darkayga. ya ragga qaarkood nebigu waa garanaya sala allahu alayh wasalam. unaadiihim waa u yeedhaa buu yidhi, ya asxaabii asxaabii wa fii lafdin ummatii ummatii. markaasaan idhahdaa waa asxaabtaydii ama waa ummaddaydii baan idhahdaa buu yidhi. markaasaa laygu yidhaahdaa buu yidhi, innaka laa tadri ma axdasuu bacdak. ma garanaysid adigu waxay dabadaa soo darrisiiyeen oo la yimaadeen, kama warqabtid ayaa laygu yidhaahdaa. wuxuu xadiidku ku tusinayaa nebiga markii la oofsaday dabadeed ummaddiisu waxay fali doonto iyo waxay markaa ku sugnaan doonto wixii hore loogu sii sheegay mooyaane wax kale inaanu ka ogeyn, oo waxa adduunyada ka dhacaya hadda nebigu inaanu ka warqabin. taasaa xadiidku ku tusinaya. ila waa taa lagu yidhi, innaka laa tadri ma axdasuu bacdak. saasaa lagu odhan doonaa. halka dadka qaarkood ay aaminsan yihiin yacni awliyada qaarkood yacni arlada waxa ka dhacay oo dhan waa ka warqabaan. cid kastoo u yeedho waa maqlayaan, cid kasta waa arkayaan, waa maqlayaan. ya yacni waxa weeye arladuu taaka taaka ugu jiraa. ya yacni sida ay dadka qaar ka aaminsan yihiin. waxaasi waa caqiido baatila, wax baatilaan sax ahayn weeye. nebi moxamed haddii la yidhi ma oga wuxuu markaa dabadii ummaddiisii ay la timi, ma cid kale ogaan karta? bale markuu nebigu joogay sala allahu alayh wasalam, meel kastoo adduunyada ka mida waxa ka dhacaya nebigu ma taalacanayno, ma arkayn. dadka qaar waxay ka aaminsan yihiin hebel waa min ahlulkashfiyo yacni meel walba adduunyadu waxay ka dhigantahay sidii bilaydh sidaa u hoos yaalla, markaasuu bad iyo berri qaaradaha adduunyadao dhan wada arkayaa. ya waa ildheero meel walba waa arkayaa, ilaa badda gunteeda, ilaa qaaradaha fogfog. ya meel walba saasuu arkayaa, wax walba waa ogyahay. war waxaasi baatil weeye, waa waxaan jirin. ya nebi moxamed sala allahu alayhi wasalam markuu gaaladii la dagaalamayey, ciidamadii gaashaanbuurta ee soo duldegay madiine duleedkeeda muu odhan wax kastay ku tashanayaan dhegteeday ku soo dhacaysaa waa maqlayaa, wax kastay samaynayaanna waan arkayaa ma odhan. madiine duleedkeedana ay degan yihiin. saxaabi buu nebigu u diro u yidhi, yaa markaa yaa man ya'tiinii bikhabari اlqowm, war yaa ii keenaya duulkan markaa warkooda yaa ii keenayo cadowga warkooda iisoo sugaya. ma odhan anaa taalacanaya. dhaxan daran baa dhacaysa, waa dhowr iyo cabsi baa jirta.
cadowgii in la dhex galaa la rabaa warkooda in la soo ogaadaa la rabaa ya dhaxanta dhacaysaana lama nuuxsan karo waa dhaxan aad u daran iyo dabayl baa dhacaysa waa la qarqaraya saxaabadii hore markay u kici waayeen baa nebigu wuxuu ku yidhi qum yaa xudayfa istaag ordo inoo keen warka markaa nimanka mar hadduu nebigu i magacaabay buu yidhi waxaan kaga fursado kaga baaqdaa yacni ma jirto halkii baan dhaqaaqay buuhi sidii baan ku socday waan dhex galo iyaga ciidanka dhexdiisii baan dhex galay waxaan arkay buu idhi ninkii ciidanka watay ee odayga ahaa ee abu sufyaan oo dab kulaalaya oo dabaylina si xun u gelayso anigu maadaama markaa shaqadaa nebigu ii diray dhaxantiiba waa layga kor qaado wax dhaxanaan dareemayaaba ma jirto inaan kaad ku dhex soconayo kale ayaad mooddaa buuri ciidankoodii markaan dhex galay waan iska dhex fadhiistay ayaa ninkii abu sufyaan wuxuu yidhi ee hoggaamiyihii ciidanka ahaa war baan sheegayaaye nin walowba ninka kugu xiga aqoonso wuxuu isleeyahay warkayaan lagaa rarin markuu sidaa yidhi baan anigu labadii hareeraha iga xigay ku booday war ku maataa markaasuu hebel baana kii kalena markaasaan aniga cidiba ima weydiin labadii hareeraha iga xigay baan kanna ku boodo aan idhi kumaa tahay kanna ku boodo markaasaan kumaa tahay mid waliba markuu igu yidhi hebel baan waxaan iska dhigay sidii mid gartay cidiba aniga ima weydiin buuri markaasuu dabeedna wuxuu yidhi waxa inagu dhacee meesha inaga qabsaday waa aragteen abu sufyaan baa odhanaya qoladii yacni waxa weeye yuhuudda ahaydna waynagaga baxday arrinkii qolyihii katafaan laftoodu yacni iyaguna waa adigu warar noocaasuu sheegay dabadeed markaa wuxuu yidhi waa guuraynaa waa iska tegaynaa halkiibaa dabeed markaysa markaa waxaan ay ku guureen wuxuu yidhi haddaan is idhaahdo sidaan ugu dhowaaday buuhi abu sufyaan haddaan is idhaahdo leebka ku dhufo waan la heli lahaa buuhi laakiin waxaan xasuustay buu yidhi hadalkuu nebigu yidhi laa tuxdisanna shay-an waxaad soo darrisiisaad samaysaa yaynay jirin warka un soo sug sidaasaan ku daayey buui markay guureen oo ay sidaa u ambabaxeen oo dabayshiina si xun u gelayso waxoodii ay ka kala tuurayso ya ayaan dabeedna anna ka soo noqday buuri nebigu warka sidii ugu keenay dee nebi moxamed muxuu odhan waayey anaa daalacanaya anaa hadalkooda maqlaaya muxuu saxaabiga ugu diraayey maalintii beder markay dhici doonto nebigu sala allahu alayhi wasalam iyo saxaabadiisu meel bay degganaayeen ciidankii yacni safarkii uu waday abu sufyaan meeshii ay ka filayeen wuu ka leexiyey markuu helay tibaaxda warka ou ogaaday in markaa nebigu soo baxay sala allahu alayh wasalam dabeed waddadii laga filayay waa ka leexdayoo xagga markaa khooriga baddu maray meeshuu maraya iyo meesha nebiga iyo ciidanka la socda ay deggan yihiin way isu dhow yihiin muu odhan nebigu sala allahu alayh wasalam anaa arko safarkaynu doonayna in yar bay inoo jirta waa kuwa halkaa maraya aan gaadhno halkan ma marayaan halkaasay marayaan waxaana laga rumaysan yahay dadka qaarkooda awliye loo qabo in adduunyadoo dhan shanta qaaradoodba waxa ka dhacaaya berri iyo bad inuu sidaa u wada daalacanayo hor taallo oo indhihiisa ku arkay ta kale uu awood u leeyahay meeshuu doono inuu tago waxay ku leeyihin waa ahlu khudwo ahlu khudwa waa maxay adduunyada tallaabo uga dhigan tallaabada hadduu doono waa dheerayn karaa hadduu doono waa gaabin karaa dad baa aaminsan waxaa hadduu doono tallaabada intuu halka ka qaado ayuu cidhifka kale adduunyada dhigi karaa ahlu khudwa weeyaan bay ku leeyihin hal tallaabuu u saaxiib yahay
hadduu doonno waa soo gaabin karaa markaasay leeyihiin shanta salaadood buu wuxuu ku tukadaa maka warsow kan jooga una aan marnaba tegin waxay leeyihiin waa ilbiriqsiyo saasuu markiiba u tagaay haddana markiiba soo noqdaa ya war muuqaalkiisa soo kana inaga faaruqin waa jasadkiisa iyo ruuxdiisii baa tagtay ku odhanaya marka kalena war waxaasi waa khuraafaad ahlu khudwa hadday jirto maa nebi maxamed iyo abubakar noqdaan maxay godka ugu jireen khaaru thawr 3 habeen iyo 3 maalmood ya maxay gaalka ula ballamayeen markuu nebigu hijroonayey yacni waatay qurayshi go'aansato ay yidhaahdeen yacni muxamed iyo abubakar waa in la soo dilaa ninka nolol ama geeri ku keena ama madaxooda keena intaasoo geeluu leeyahay baa leeyahy ya intaas oo geela ayuu leeyahay baa leeyahy geelana carabtu aad iyo aad bay u jeclay marka god bay galeen buurtaa ku jira buurtaa ku yaalla khaaru thawr bay galeen 3 habeen iyo 3 maalmood bay ku jireen ahlu khatwa hadday yihiin may hal mar tallaabsadaan halka kala tagaan waxay u dhiibeen nin cabdullaahi ibnu urayqid la yidhaahdo oo aan muslim ahayn oo gaala laakiin nin aamina ahaa dalyaqaanna ah bay labadoodii rakuub u dhiibeen oo yidhaahdeen noo soo daaji 3 maalmood dabadeedna halkaa noogu kaalay dabeedna na kaxeeyoo na dal mari ujuurada intaa la egna waa ku siinaynaa xaqiiqatan nin aamin u ahaa ya dee ma iibsan ama ma odhan intuu gaaladii la soo ballamo war halkaasaan kula ballansanahay ee iska dhiga sidii qaar aan markaa dee waxba ogaynoo na wada qaqabta ya yacni saa ma odhan kuma ballan furin waa u ilaaliyey waa soo daajiyey khabarkii waa u ilaaliyey ujuuradiisiibuu sidii ku qaatay sidii buu u kaxeeyey waddo dadka badankoodu aynay aqoonin ila dalyaqaan buu isagu ahaaye ayuu mariyey oo aan laga filay dadkiina waxa weye badankoodii dee 3 maalmood iyo 3 habeen baa la bayhoofay ya oo la daalay oo doonistii la doonaayey way yaraatay markan sidii buu deed ku kaxeeyey intaasoo maalmood iyo intaasoo habeen buu sii waday ahlu khatwaanu nahay oo uma baahnin markaysagaa rakuubadane mar baanu tallaabsanayna may odhan sida dadka caadiga u lugeeyo bay u lugeynayeen oo u soconayeen sida gaadiidka caadiga u socday ee markaa awrta iyo halaha ahi ayay u soconayeen ee may duuleen ya haddii umuuruhu tamani iyo jeclaysi ay noqon lahaayeen oo ay ku xasili lahaayeen ninkaa waxaan la jeclaysan lahaa inuu islaamo laakiin maca alasaf ninkii waxaa weeye nebiga iyo abubakar kaxeeye madiine geeyey gaalnimo ku dhintay ya ma islaamin alhidaaya min allah gaalnimo ayuu ku dhintay marka calaa kulli xaal waxyaalaha noocaasee la odhanayo hebel baa ahlu khatwo ah hebel baa markaysaga markaa adduunyadao dhan daalacanaya hebel baa adduunyada maamula oo qutbi baa la yidhaahdaayoo umuurahoo dhan baa ku wareega waxay yidhahdeen waa qutbi bay yidhahdeen taduuru calayhi lumuur caalamkao dhan isagaa maamulaya waa abaatiil waxaas waa waxaan jirin marka nebiga sala allahu alayh wasalam ilaahay khasaa'is badan buu siiyey inaa acطaynaaka alkawhar marka ragga darka nebiga laga caydhinayo ayaynu joognay xadiiskiiye inaka laa tadri ma axdaثuu bacdak ma garanaysid waxay dabadaa la yimaadeen faaqulu kama qaala alcabdu الصaalix waxaan idhaahdaa buu ihi sidii addoonkii wanaagsanaa uu yidhi wakuntu calayhim shahiida maa dumtu fiihim falamaa tawafaytanii kunta anta araqiiba calayh addoonkii wanaagsanaa siduu yidhi waa ciisa loo jeeda ciisa bnu maryame calayhi الsalaatu wassalaam ayaan idhaahdaa yacni waxaan markhaati ku ahaa intaan dhex joogay markaad i oofsatay adiga ayaa ilaalinay adiga ayaa ilaalinay markaasaa waxaa laygu yidhaahdaa buu yidhi lam yazaaluu murtadi'ina calaa acqaabihim kamay bixinoo kamay zuulin inay cidhbahoodii dib uga laabteen faaquulu suxqan suxqan
dabeedna waxaan idhahdaa buu naarta ku fogeeyey waa ku fogaadaan naarta marka almuhim dadka qaarkood darka nebiga sala allahu alayh wasalam waa loo diiday axaadiista darka nebiga ku soo aroortayna waa axaadiis mutawaatira oo fara badan oo saxaabo badan ay soo warisay qur'aankana saasaa loogu tilmaamay ina acطaynaaka alkawhar ciddii shareecadii nebiga ka cabtay ilaa shareecadu waxay ka dhigantahay sidii biyo la cabbaayo kale oo lagu oombeelaye ee darka nebigana aakhiro way ka cabbi doonaan shareecadii nebiga ciddii ka cabtay ee ku dhaqantay ee ku camal fashay darka nebigana aakhiro way ka cabbi doonaan jacalana allahu minhum fasalli lirabbika wanxar ilaahay wuxuu yidhi rabbigaa daraaddii wax u gowrac ilaahay fasalli lirabbika rabbigaa aawadii u tuko wanxar rabbigaa dartiina wax u gowrac fasalli lirabbika waa ilaahay u tuko cid kale ha u tukan gowracana ilaahay wax u gowrac cidaan allah ahayn in wax loo gowracaa yacni marka ma bannaana gowraca iyo salaada waa la ysku lamaaneeya qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin saasaa la ysugu lahaa salaadda iyo gowraca marka gowracu shani weyn buu leeyihi marka gowraca ilaahay cidaan ahayn wax loo gowracayo oo lagu weynaynayo oo wax lagaga doonaayo oo qurbaan iyo dhowaansho lagaga rabo oo barako lagaga rabo yacni cidaan allah ahayn loo gowracayo waxay noqonaysaa shirki bay noqonaysaa waa nooc gaalnimo ah weeye waa shirki waa gaalnimo waa salaaddii in ilaahay cidaan ahayn loo tukado kalay ka dhigantay marka gowraca waa in ilaahay loo khaas yeelaa sida salaadaba rabbi loogu gaar yeelay ina shaani'aka huwa alabtar ka marka adiga ku nacayee ku cadhoonaya isaga ayaa goblana isaga ayaa goblana oo cidhibtiisu go-anta nebi maxamed cidhibtiisu ma go'na gaalada qaarkood baa waxay yidhaahdeen markii nebiga sala allahu alayh wasalam inamadii u kacaami waayeen oo inamaduu nebigu dhalay way saqiireen hablihii baa kacaamay habluhu nebigu dhalay sala allahu alayh wasalam waa kacaamay gaaladii waxay yidhaahdeen waa goblan oo waxay u qabeen gaaladu hadduu ninku markaa hablo leeyahay oo aanu inama lahayn inuu goblan yahay u qabeen inuu goblan yahay ayay u qabeen soomaaliduba waa yidhaahdaan hadduu 9 hablood leeyahay oo aanu inama lahayn waa goblan bay yidhahdaan waa caadadii carbeed ee gaalada carbeed yaqaaneen laakiin waa waxaan jirin waxaas yani waxa weeye caqibka yani waxaa laga eegaa qofka markaa tafiirtiisa ayaa laga eegaa ruuxii aan ubad lahayn baa markaysa waxaa goblan laakiin ruux markaa ubad lihi goblan markaa ma noqonayo ama habla ha yeesho ama inama ha yeeshe yani saas yada wey marka waxay yidhaahdeen waa goblane waxaynu la sugaynaa geeridaanu la sugaynaa bay yidhahdeen natarabasu bihi rayba almanuun ya geeridaanu la sugaynaa bay yidhahdeen markaasuu ilaahay wuxuu ihi ina shaani'aka huwa alabtar ku adiga ku cadhoonaya ee ku nacaya kaasaa goblan ah oo cidhibla nebi maxamed ma cidhibla saas aawadeed gaaladii waa weynayd ee nebiga colaadinaysay bal maanta markaysagaa cid tafiirtoodu caan tahay bal sheega cid la odhanaayo yani waxa weeye waa ilmo abulahab waa reer abulahab ya ama la odhanayo waa reer abujahal ya ama wax la mida ama la odhanayo waa reer ubay ibnu khalaf ya marka waxa weeye nebi moxamed sala allahu alayh wasalam hadh iyo habeen baa la xusaya goor kastaa la xusaya salaad kastaa lagu addimaya wa ashhadu anna muxammadan rasuulu llah addimaadda la addimayo iqaamada la qiimayo khudbadda la khudbadaynayo salaadda la tukanayo midna asixi mayso haddaan markaa shahaadada markaa risaalada nebiga la qiraayo aan lagu dhawaaqin oo la qirin bismi illaahi araxmaan araxiim inaa acطaynaaka alkawhar annagu waxaanu ku siinay khayr fara badan ama inaa acطaynaaka adiga waxaanu ku siinay alkawhara yacni darkii ayaanu ku siinay khayrka badnaa fasalli lirabbika u tuko rabbigaa
wanxar rabbigaana wax u gowrac waa marka waxa weeye udxadii yani markaa la qalaayey bay culamada qaarkood ku fasireen fasalli lirabbikana waxay yidhahdeen waa salaatu ciidi naxri yani waxa weeye salaatulciidka weeye maalinta markaa yowmu naxriga ama ciidunaxriga la tukado gowracuna waa gowracii udxada la gowracayey bay culamada qaar ku fasireen oo sidaa aayadda loo kala horraysiiyeen ee loo kala horraysiinaya salaada ciidda marka la tukado dabadeed ayaa gowraca lala imanayaa yani marka udxada ah lala imanaya laakiin udxada lama hormarin karo oo salaada ciidda lagama hormarin karo sidaas waa in loo kala horraysiya ay u kala horrayso culamada qaarna waa camimeen oo waxay yidhahdeen salaad kasta iyo gowrac kasta ayaa soo gelaya ilaahay dartii un u samee cid kale ha u samayn ina shaani'aka ka adiga ku nacaya kula colloobaya huwa alabtar isaga ayaa yani goblan ah oo bimacnaa yani markaa khayrkiisu uu go-an yahay oo markaa khayr yani markaa cidhibtiisu ay go-aysaa waxaa suuradda ilaahay ku khatimay ina shaani'aka huwa alabtar shaani'u waa almubqid oo shani'ahu bimacnaa abgadahu waa nacay oo waa la colloobay marka ka ku nacayee kula colloobaya isagaa goblan ah oo dabar go'aya ama isagaa khayr ka dabar go'ay abtarku waa saas almunqaطicu can kulli khayrna culamada qaar waa ku fasireen laakiin asal ahaan waa almunqaطicu alcaqib waa ka cidhibtiisu go'day oo goblamay weeye waxay culammadu ka qaataan cidda sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam la collowdaa oo bidco iyo baadi la timaada inay nasiib ku leedahay abtariyada saas yadaa bay ka qaataan abu bakr ibnu cayaash sheekhii muxadiska ahaa ee qaarigana ahaa shucbay qura'du u yaqaaniin laakiin muxadisiintu waxay yidhaahdaan isim aan abu bakar ahayn ma laha sida muqararka ku ah kutubta musطalaxulxadiiska oo aad ku arki karto yani kutubta musطalaxa oo waxay u misaaliyaan man kunyatuhu ismuh kay kunyadiisu magiciisa tahay oo kunyaduba magac u tahay ayay u tusaaleeyaan abu bakr ibnu cayaash iyo ruwaad kaleba quraaduse waxay u yaqaaniin shucba ayay u yaqaaniin magaciisu inuu yahay wuxuu yidhi markuu ka warramayey warafacnaa laka dikraka iyo ina shaani'aka huwa alabtar wuxuu yidhi cidda sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam noolaysa oo dariiqii nebiga raacdaa nasiib waxay ku leedahay buu yidhi warafacnaa laka dikrak sideedaba wuxuu yidhi man jalasa julisa ilayh kii fadhiistoo yidhaahdo waxbaan sheegayaa dadku waa u fadhiistaanoo waa dhegaystaan laakiin waxay ku kala duwan yihiin yacni raadka dambe ka hadhayay ku kala duwan yihiin marka kii sunnada nebiga noolaynayey nasiib isagu wuxuu ku yeelanayaa warafacnaa laka dikrak oo ilaahay baa dikrigiisa korraysiinaya kii sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam khilaafo bidac la yimaada iyo bidcooyin iyo baatil ila ruux kasta oo bidco la yimaadaa qayb sunnada ka miduu necab yahay oo dhibsanaya in la sheego isaguna wuxuu nasiib ku yeelanayaa ina shaani'aka huwa alabtar taasuu nasiib ku yeelanaya marka waxa lagu irtifaacaye lagu kor noqonayaa waa qumanaanta sharciga lagu qumman yahay
إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وتحديث صحيحة النبي كوري صلى الله عليه وسلم إلهي كتاب كان ضدبو كوكر ريسين يا كوكر يليا قارن هوسبو أقوليا مركا وحلقة قادنيا إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تشعلاده ولا راعه ولا قو عمل فله ولا قرقاره ضدك الله يهره سئن أبتري ذا الله قدعين ووعيد ذا كسو أروري خلاف كالسنة النبي قال لا خلاف أيو سئن مركا الله قدعين والله أعلم سبحانك اللهم